Mareykanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ku dhuftay qabowgii ugu badnaa iyo barafkii ugu baaxadda weynaa ee ka da'a muddo boqolaal sano ah, waxaana lagu soo waramayaa in ka badan 800,000 oo qoys oo ku nool koonfurta iyo bariga waddankaasi Mareykanka ay koronto la'aan yihiin, iyadoo lagu soo waramayo in ka badan 14,000 oo duulimaad la hakiyay maadaama cimilada, dabaysha, duufaanta iyo barafkuba ay yihiin kuwa aan kala go' lahayn, qabowgana uu yahay halkii ugu sarreysay, iyadoo lagu soo waramayo in deegaano badan iyo gobollo badan oo dalkaasi Mareykanka ka mid ah lagu soo rogay xaalado degdeg ah maadaama wadooyinka ay xirmeen, duulimaadyadiina ay joogsadeen. Dad badan oo ku nool magaalooyinkaasna ay yihiin koronto la'aan iyo biyo la'aan, taasoo ay sababtay xaaladda qabowga, barafka iyo sidoo kale duufaanaha isdaba taxan ee dalkaasi ka jiro, waxaana magaalooyinkan ay ku dhufteen barafka, qabowga iyo duufaanaha lagu soo waramayaa in ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo milyan oo qof, taasoo saameyn xoogan ay ku yeelatay cimilada qallafsan ee ka jirta dalkaasi Mareykanka. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu u rajaynayo dadkiisa nabadgelyo iyo xasillooni, isagoo sheegay in ay si joogto ah ula socon doonaan dhaqdhaqaaqa cimilada iyo waxa ka jira dalkiisa, isagoo sheegay in ay u gurman doonaan dadka ku nool magaalooyinka ay dhibaatadaas baaxadda weyn lahi ka jirto. Arrintan ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay isu socodka gaadiidka cirka, badda, dhulka ee dalkaasi Mareykanka. Dukaamo badan iyo supermarketyo badan oo dalkaasi ku yaala oo laga iibsado cunnada daruuriga ah ayaa lagu soo waramayaa in ay faaruq yihiin kadib markii si degdeg ah ay dadweynaha uga kala adeegteen, iyadoo laga soo sheegayo in dhibaatada koronto la'aanta ay iyaduna sababayso dhibaatooyin aad u baaxad weyn maadaama qabowgu yahay halkii ugu sarreysay. Magaalada New York oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn waddankaasi Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa iyaduna in uu soo gaaray duufaantan baaxadda leh, barafka iyo qabowga daranna ay la circirayso, iyadoo kooxaha saadaasha hawadu sheegayaan in xaaladdu ka sii dari doonto. Barafka, qabowga iyo sidoo kale duufaanuhuna ay sii xoogaysan doonaan, magaalooyin badan oo aysan hadda gaarinna ay sii gaari doonaan. Wasiirka arrimaha gudaha waddanka Mareykanka Kristi Noem ayaa isaguna dadweynaha faray in ay guryahooda ku kaydsadaan shidaalka iyo cuntada maadaama xaaladdu tahay mid ka sii darayso. Duufaanaha, dabaylaha iyo qabowga la filayo iyo barafkuba ay yihiin kuwa sii kordhayo, iyadoo xaaladda wadooyinka iyo sidoo kale duulimaadyaduna ay yihiin mid hakad ku jirto. Arrintan ayaa lagu soo waramayaa in ay saameyn xoogan oo dhanka dhaqaalaha, isu socodka iyo sidoo kale dadweynuhuba ay ku yeelatay guud ahaan waddankaasi Mareykanka oo hadda laga dareemayo dhibaatada dhanka cimilada ah ee soo wajahda waddanka Mareykanka. Halka warka kiisa ugu doorkoran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.